السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحبت وادين سلام ميرك صدر نجعل لك جوتاواني اور سمعت الله سياسيعو جنا كداويني سنو سيعو برودكشن سو دواده جايز هي isku soo noqod wanaagsan asxaabta isku soo noqod wanaagsan runtii aad baan idinku xiisay waxaan rajeynayaa idinku caafimaad qaba anigoo caafimaad qaba inaad dib isu soo laabanay aad iyo aad ma santiin fadlan hadii ay tahay booqashada kugu horeysan jira ka soo booqato waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa subscribe like share comment inta inaad dhadhadhadha ku siiso hadii aad hore noo joogtana aad iyo aad ma san tahay soo dhawow guys runtii hore idinku sheegay wax walbo aan sameeyo wax ka soo aan sameeyo abaalkiini ma aha midaan gudi karo mid macna iga gudmaayo ma aha midaan gudi karo ma aha runtii aad iyo aad ma santiin sidoo kale walaashay Maria aad iyo aad ma san tahay thank you so much markasana runtii madaxa korkiisa ayaad ii saaran tahay wax ka soo aan sameeyana ma aha mid abaalkaaga aan gudi karo macna so guys inta muuqaalka u gudagelin waxaan idin ka codsanayaa please saacadii wax yar nooga dhiman wax yar aan nooga dhiman okay so marka si saacada ay u badato saacada iyo fiisku isku xiran yihiin hadii fiisku oo bato saacadana way badanaysaa ding ugu dambeyn way ku dhacay biri dambe saakunta isbuuca dambe I don't know waqtiga tahay idinka ayay idinku xiran tahay marka waxaan ka codsanayaa in muuqaalka aad sheegaysaan si fiiska u bato fiiska even wuxuu ku badan karaa in aad sheegaysaan si subscribers maxaa ku radaa fara badan aan u helo okay niyo ka codsada okay anyway waan ka codsanayaa please waxaan ka codsanayaa muuqaalka xiga janaalka 2000 ha gaaro waa iga codsi asxaabi janaalka 2000 ha gaaro codsi ayay iga tahay 2000 ha gaaro 1200 marayna 800 ka dhiman ugu yarna hataa ha dhawaado macna ha dhawaado 1700 1800 ha dhawaado hadii ku meelahaas oo gaaro fiiskii waa badana macna saacadiina ting way ku dhacay aad iyo ma santiin cawada maxaan wada intaan muuqaalkii u gudagelin ka hor laba arrin arbaa inaan ka hadlo oo YouTube ka loo soo galo arrinta saddexaad way dambeeyeen YouTube-ka dadka waxay u soo galaan laba siyaabood dadka oo saxdan aan sheegayaa laba siyaabood u soo galaan ninna wuxuu u soo galaa YouTube-ka for the sake of shaqo abuur darteed u soo galaa YouTube-ka inuu shaqo abuur ay u noqoto nolol maalmeedkii meesha uu ka dabaro qotinoolkii meesha uu ka dabarto taa kaas waa midna wuxuu u soo galaa for the sake of entertainment inuu dadkii madadaaliyo oo ka qosliyo xogaa jeebkiisa ku kuusan yahay laakiin wuxuu u soo galaa in dadkii uu madadaaliyo dadkii uu ka qosliyo dadkii uu wacyi geliyo dadkii uu dhirigeliyo labadaas waa garanay garaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay aday si sax u adeegsadeen xaq noo dhig marka aan u soo laabano kuwa saddexaad kuwa waxa jir marka u soo gala YouTube-ka dad le inay kabaashaan dad le inay wax ka sheegaan dad le inay caayaan waxyaabo aan lahayn isla hesiyaan okay gacantan waa midig gacantan waa bidix midig ma la dhigi karaa midigna maxaa ku radaa bidixna midig ma la dhigi karaa no macnaha hadda tan waa midigteedii tan waa bidixdeedii saacadii ugu xiran tahay adiga daawanaayo kaamirada ayaa waxay kaaga dhigaya gadi macnaha midigteedii waxay kaaga dhigaya bidixdaada macnaha bidix kaaga dhigaya bidixdeedina waxay kaaga dhigaya midig marka tan waa midigteedii tanna waa bidixdeedii saacadii ugu xiran tahay marka saas ula socdo marka dad waxaa jiro caddaan madow isqabadsiinayo macnaha mana isqaadan karaan isku midna ma aha halna ma noqon karaan caddaan iyo madow isku darba hal ka dhigaadi caddaan oo ahaana madow ahaana marka waxaa jiro muuqaal TikTok-gii iyo YouTube-kii saas u wareegaya macnaha saas u wareegaya hadda aniga cawada qorsheyga wuxuu ahaa hees cusub in reaction aan ka soo bixiyo laakiin muuqaalkan TikTok-gii dhex wareegaya YouTube-kii dhex wareegaya markaa arkay oo dadka qaar si qaldan ay ugu soo hadlayaan oo xukunkii ay ridayaanba
marka waxaan jeclaystay xaqiiqada dhabta inaan muuqaalka aan kusoo bandhigo. Okay, muuqaalka aan isla aragno marka hore guys, muuqaalka aan isla aragno meelaha la wareejinayo aan isla aragno, kadib aan ka dhihi doonaa wixii aan ugu talagalnay in maxaan ku yidhahdaa aan ka dhahno. Kenya waxa uu ka hayay inuu dadka dilaan taas oo wax cad. Kan kale Malaysia ka yimid, Malaysia waxa ka Soomaaliya waxa uu soo aaday waa dulmi iyo dhibaato dalkan inuu burburiyo. sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta oo ay qorayaan aayaadka qur'aanka iyo axaadiisa iyo qodobada aan ku soo eedaynay in lagu xukumo si ay ugu tusaale qaataan kuwa ka dambeeya ee Soomaaliya u soo hanqaltaagaya inay ka dagaalamaan dhiig Soomaaliyeed. Okay, dabcan muuqaalkaas la aragnay, muuqaalkana wuxuu wareegoyaa YouTube-ka, wuxuu wareegoyaa TikTok-ga. dadna si dhab ay u qaateen, dadna way cabireen, way fiiriyeen, sidiisa maxaa ku yidhahdaa ugu tageen. tanay geliyeen, tanay ka bixiyeen. dadna tanay geliyeen, tan ma gaarsiinin dhexdhexad. cidmiinis waa aamine waay, sababtoo ah waxyaaba aad aaminsan tahay ma aha waxyaaba aad inta ingiriisinta ka bixiso oo aad iska tuurayso micnaha. waa waxyaaba cashinayso, waa aaminsanahay aad dhehaysid. Okay, evan fiiri muuqaalka markii qurux ku dhiigl oo laga had macnaha sawirka qurux ku dhiigl marka soo saaray dhar gooniyo wataa, markii Muniir dhar gooniyo wataa, ninka ciidanka ah laba dharoo kala nuucoo wataa. taas maxay ku caddeynay laba muuqaal inay tahay macnaha. marka xaqiiqada dhabta maxay tahay? marka xaqiiqada dhabta waxay tahay labada nin kan la leeyahay Kenya naga soo galay, kan la leeyahay oo Kenya joog jir la leeyahay waa nin u dhashay wadamadan Yurubiyaanka. kan qurux ku dhiig lagu matalayo waa mid nin u dhashay wadamada Yurubiyaanka. Mombasa deganaa, gabar Soomaali oo qabay, ilmahooda Soomaali too dhalay. kan kale ee la leeyahay Muniir lagu matalayana waa nin Malaysia u dhashay ee Soomaaliya maxaa ku yiraahdaa joogay. waxaana la xukumay labadoodaba waxaa la xukumay laba maalin oo kala duwan la xukumay. maalinta dharka madowga oo wato waa maalinta la xukumaayo ninka u dhashay Yurubiyaanka u dhashay oo maxaa ku yiraahdaa Kenya joogi jiray 7 bilood. maxaa ku yiraahdaa uu Kenya joogay 7 bilood oo Mombasa u deganaa. dabcan gabar Soomaaliyeed oo maxaa ku yiraahdaa arrintaas inaa sheegana oo runtii aad iyo aad uga xumahay. arrintooda marka waxaa lagu soo bandhigay muuqaalku ina soo qaato waa rabay, laakiin copyright ku xiran ma la soo qaadan karo. muuqaalku ciddii danaynaysa muuqaalku wuxuu yaalaa janaalka sheeg Somali National TV. marka muuqaal uu leeyahay Somali National TV ma la soo qaadan karo, copyright ku xiran. qof allaala qofkii u baahan wuu soo fiirin karaa micnaha. marka ninka qurux ku dhiig lagu matalayo waa ninkan asawirkiisa ujeedaan. ninka lagu matalayana Muniir waa ninkan asawirkiisa ujeedaan. kan Muniir lagu matalayo wuxuu u dhashay Malaysia, waa Malaysia ayuu maxaa ku yiraahdaa waa Malaysian waaye. kan qurux ku dhiig lagu matalayana wuxuu u dhashay wadamadan Yurubiyaanka ayuu maxaa ku yiraahdaa u dhashay. wadamo fara badan oo taas usoo wareegay micnaha. ugu dambeyn Soomaaliya lagu qabtay, maxkamadda ciidamada qalabka sida maxaa ku yiraahdaa xukuntay. taas cadeynteedana waa kan. cadeyntii waa tan, soo ma aragtaan? marka qof allaale qofkii u baahan Somali National TV ha booqdo. 2 bilood ka hor ayaa la xukumay nimankan micnaha. marka guys runtii waxaan la hadlayaa dadka dhega ku garaadayaasha, kuwa maskaxda garaadka ku leh
oo ilaah subxaana watacaala garaadka u siiyey si sax u isticmaala ma ka hadlaya aniga kuwaas waxaan la hadlayaa dadka dhagaguraadlayaasha ay waxay maqlaan aamina bis so xaqiiqda dhabta waa taasa xaqiiqda dhabta ah waa taas ciddii alaal cidda u baahan muuqaalka inay maxaan ku yihahdaa daawato Somali National TV YouTube-keeda gala 2 bilood ka hor ayuu xukunkii dhacay xaqiiqda dhabta xagga ayaa kasoo ogaanaysaan qofkii u baahan xaqiiqda dhabta xagga ayaa kasoo maxaan ku yihahdaa kasoo ogaanaysaan Somali National TV ani wuxuu u yahay subscribe ayuu u yahay xog walbo muuqaal walbo soo dhaco uu isoo gaaraa micna muuqaal walbo oo soo dhaco oo la soo geliyo uu isoo gaaraa micna ama ha ahaado mid xukun ah ama mid akhbaar ha ahaado marka arrintan 2 bilood ka hor waxaan ku yiraahdaa update-ana anaga mana la gaadi karo so anyway guys marba muuqaalkii inoo dheeraado fadlan haddii ay tahay booqashada kugu horeysa janaalka soo booqato waxaan kaa codsanayaa subscribe like share comment inta badan ku siiso haddii aan u joogtina aad iyo aad u mahadsan tahay please and please guys waxaan idinka codsanayaa next muuqaal annagoo 1700 meelahaas 1600 meelahaas marayno in maxaan ku yiraahdaa aan dib isugu soo noqono so inta muuqaalka xiga aan dib ugu gulmi doono aad iyo aad maxaan ku yiraahdaa u mahadsantihiin walaashay Maariya adigna sidoo kale aad iyo aad u mahadsan tahay muuqaalka sharciyo peace and love guys